ومناسبة حركة شريدة مقاحدة عصب فايبوب أن كافيه تاسيو كدعدي مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا gaarahaan xaafada ay Soomaalidu ku badan Tesla ayaa waxa goob joogaha dhalinyarada kala duwan ee bulshada isticmaashay Soomaalida caanka kuwaas oo ka soo qayb galay munaasabada ballaarinta maqaaxida 5 peso ee ku taala xaafada Isli ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi halkaasi ayay ka hadleen sidoo kalena waxa halkaasi lagu soo bandhigay adeegyada kala duwan maqaaxidan cusub ee casriga ah lagu soo kordhiyay. Assalaamu alaykum asxaabta dhamaan waydi wada salaane waxaad u jeedaan wax kale ma aha dhadhanaan ma aha waa macmacaankan ajnabi ma sameeyeen waxa sameeyeen gabdho Soomaali ah waxa sameeyeen maamooyin oo habaryaasheena ah khayr Allah siiyo waxa way caaw macmacaanka waan laga dhisay waxay dhaaday kuwin canab hal haween lagu macaylay cunay tareedayda ku jira ma sha Allah waxaan ka soo qayb galnay Faiboba xarig jarkeeda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waan rajeynayaa insha Allah inaan imaado ilaahay inuu noo suura galiyo inuu furmo dukaankan aad ku qurux badan wuxuu ku yaalaa Jam Street maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo Faiboba 5 peso meesheeda oo cusub ay ka fureyso oo u dhaxeyso Al Hidayah iyo shirika junction-keeda ugu hambalyeynaya business ka weyn in ay furato maxaa la dhihi jiray dhiirigelin u tahay maamooyinka Soomaalida gabdhaha Soomaalida waa qaf maxaa la dhihi jiray military oo karti badan ilaahay ha u dhameystiro ilaa cawri Allah ka dhiga anagana kuwa ku daysano sideeda cambalita Allah naga dhigo business waa iska rabnaa marka waxa dhahay ilaahay ku xirageliyo xaraan ilaahay kaaga dhowro ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxa u taaganahay waxa way xarag jarkeeda oo ugu horeeyay oo meeshan laga furay Al Hidayah iyo shirika junction-ka u dhaxeeyo soo dhawaadaan idahaya ma sha Allah tabarakallah ku daysho mudan tahay qaftaas maya dhadhanaan ma waxaan waxa way macmacaan dadka xafladaha qabo dadka aroosyada qabaan dadka maxaa la dhigi jiray bye bye loo dhigaayo welcome ta loo dhigaayo waa ka helaysiin boobada loo aadayo meel dheer mujida meeshana ka heli kartiin wax walba oo macmacaan aad dalbatiin fadhigaaga lagu keenaya delivery leedahay free leedahay وأنا كسوق بقشي صايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكام وحنا أتاجنا هاي فرتانكي باو ما شاء الله ماما سوماليات هوي سوماليات نديري جلسي وطلق شيء وحيابي مقالة هو ساعة وقاعد لهين إن ماشان كان إسليد حدادا وحنا ماما ذا إلى يقو بركيو جناعسي جاجا قروح ضبضن waxaan ku rajeynaynaa kan ku kala inuu ku dhalo iyo meel ka qurux badan inaad ka furtid waxaan leeyahay Soomaali Maxamed waa inaad soo garab istaagtiin qofka markuu shaqo bilaabo ku dhiirigelisiin waxaan rajeynayaa maamadan oo kale in la wada noqdo maamooyinka qaarkood sida maamadan ay ugu dhiiran tahay inay wax qabsato intaad meelaha istaagi leedahay ama gacmaha aad taagan lahayd sidaan oo kale cunto aad karisay way waxaan waa ma waxayna warshad waa gacan hooyo Soomaaliyeed oo qurux badan ay ku hagaajisay oo uga maaranay meeno warshad oo kale ku soo dhawaada qof walba oo rabo inuu magaciisa bye bye dhigto ama qof uu casmo guriga ugu imaado oo kale wax walba waxaysanaysaa waa helaysaa waxaan ku rajeynayaa business-ka ku barakoobo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa ku soo dhawaataan macmacaankan inaba caadi ahayn Faiboba waxay caan ku tahay crepe-kan caan ku tahay iyo bobagi ma sha Allah waffle-ki cheese corn amishu ka maqneen ما شاء الله لو سو دواده هدي 5 بوبا ان شاء الله معمعان نوع walba naga heleysaan xaflado birthday everything oo diyaar ay in lahay ha lagu soo dhawaada hadi